Elman Fees Dekada waa mid ka mid ah kulamada ugu xiisaha badan ee laga ciyaaro horyaalka Soomaaliya Premier League wuxuu ka dhici doonaa garoonka Engineer Yariso Stadium saacadu markay tahay 9:15 kani waa kulan dagaaleed ee hogaanka Soomaaliya Premier League labadani kooxood ayaa kala horeeya 3 dhibcood oo qura maadaama naadiga Elman ay hayso hogaanka horyaalka Soomaaliya Premier League ee ku hogaaminayso 17 dhibcood halka naadiga Dekada ay ku jirto booska saddexaad ee horyaalka Soomaaliya Premier League iyadoo leh 14 dhibcood Elman waa naadiga kaliya aan laga adkaan horyaalka Soomaaliya Premier League xilli ciyaareedkan halka naadiga Dekada laga adkaaday hal kulan oo qura waxaana ka adkaatay naadiga Muqdisho City Club ciyaar ku soo dhamaatay 5-0 markaana waxaan mikrofoonka la dhax qaadi doonaa dhalinyarada jecel daawashada kubadda cagta iyagoona ka aragti dhiibo doona kulanka xiisaha badan ee Elman iyo Dekada ugu horeen daawada ku soo dhawaaway TV-ga gool adigoo ka aragti dhiibanaya kulanka dhaxmari doona Elman iyo Dekada hadaba saadaalintaada ka bixi magacaagan adigoo ka bilaawaya bismillaahir rahmaanir rahiim anoo magacayga Maxamed Axmed Cumar Maxamed Booro kulan Dedera iyo Dedera iyo Elman kulankaas hadii bixiyo 3-0 ku dhimaayay oo yaa ku badinaya kooxdii qaali Elman ku bariyay waaxda soo dhawaad daawada adigoo ka aragti dhiibanaya kulanka dhaxmaraya Dekada iyo Elman magacaagan adigoo ka bilaawaya bismillaah waa ku dhawahay gool TV magacayga waa Cusmaan Maxamed Cusmaan kuna magac dheer Daneheena hadii aan ka dhiibto saadaalin gool Elman iyo Dekada waxa badin doono Elman kuna badinaysa 2-1 aad u maasan soo dhawaaw kana aragti dhiibo kulanka dhaxmari doona Dekada iyo Elman iyo saadaalinta magacaaga adigoo ku bilaabaya magacayga Cabdirashiid Aadan Weheliye taageeraha MCC kulanka dasaanka bixiyo waxa badan doonta Elman 2-1 aad u maasan tahay dhawaaw ugu horeen gool TV adigoo ku bilaabaya magacaaga kana aragti dhiibanaya kulanka Elman iyo Dekada magacayga waa Cabdi Maxamed Cusmaan ciyaarta saddex saadaaliye kooxda Dekada badan doonta insha Allah 3-1 badan doonta aad u maasan tahay soo dhawaaw kana aragti dhiibo kulanka Dekada iyo Elman adigoo magacaaga ku bilaabaya magacayga waa Muuse Cali Cabdi hada kulanka Dekada Elman iyo Dekada u dhaxay hada saadaaliyo waxa ku dhamaanay 3-1 waxa ku badinaysa Dekada gool TV ku soo dhawaaw adigoo ka aragti dhiibanaya kulanka Elman iyo Dekada magacaaga ku bilaabaya ku dhawaay magacayga marka hore waa Cabdinaasir Cabdishakuur Cali waa ku dhawahay ana waxa taageer oo ah Elman iyo Dekada Elman iyo Dekada Elman iyo Dekada Elman taageer oo ah galabtay inay badso 3-0 ku badanay horeen ku soo dhawaaw gool TV adigoo magacaaga ka bilaawaya hadana saadaalinaya kulanka dhaxmari doona Elman iyo Dekada maasanta walaal magacayga waa Mawlid Cabdiqaadir Cartan hadaan isku dayo kulanka saadaashiisa Elman wax ku badinaysa 3-1 kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah taageerayaasha kala taageera naadiyada Elman iyo Dekada si kastaba ahaatee kulankani ayaa ah mid ay indhaha ku wada hayaan dhammaan kooxaha ka ciyaara horyaalka Soomaaliya Premier League iyo taageerayaashooda maadaama kulankani uu yahay mid ku xiran hogaanka horyaalka Soomaaliya Premier League Sagal Daahir Qaasim Goal TV